السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada janaalka Somali Tutorials fadlan janaalka hadii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar sidoo kalena muuqaalka inoo la garay hadii aad hore inoo joogtayna waxaan ku leeyahay mar labaad soo dhaw maanta iyo muuqaalkeena waxaynu ku qaadan doonaa nijiska ama markaa waxyaalaha la soo gudbiyo waxyaalaha ugu lacagta badan maybe in aadan aqoonin maybe inaad soo gudbiso website-kaaga aad ku soo gudbiso wax marka aan tayo wanaagsan lahayn lacag wanaagsan aad laga sameyn karin halka aadan aqoon kuwa marka ugu lacagta badan waxaan rabaa muuqaalkan inaan kugu falanqeeyo shan kamid ahna aan kugu sheego insha Allah okay muuqaalka intaan u guda gelin waxa aan ka codsanayaa janaalka inaad subscribe ii saarto sidoo kalena muuqaalka aad inoo la gareysay marka asxaab fara badan oo u gaaro waayahay sidoo kale waxaan ku xasuusinayaa hadii aad tahay qof marka dhalinyaro ah ee raba in website loo sameeyo ee marka online lacag ka sameeyo sidoo kale tan marka isagoo gurigiisa jooga waqtigiisa iska qaadanaya bloggingkiisa lacag ka sameeyo hadii sababta saas ah waxay tahay shak idinkaaga ma jiro in blogging lacag laga sameeyo oo qof walba uu garanaya qofkan garanayna kullee YouTube-kana ku laabto oo qaybta playlistiga uu tago oo marka course blogger oo free meesha ku jiro oo fahmo ama uu dhageysto ama waxun uu ka fahmo kula talinaya laakiin hadii aad doonayso website diyaarsan ee professional ah ee marka website-yada ardaydana loo soo aqbalay ah waad nala soo xiriiri kartaa WhatsApp-keena waxaad ka helaysaa qaybta hoose ee description-ka sidoo kale Telegram ayaa linkigiisa waxa saaran qaybta description-ka hadii aad doonayso waad nagu soo biiri kartaa soo waayahay si maanta muuqaalkeena aynu u guda galno waxa aan rabaa in aan kula wadaago top 5 hore waxaan kula wadaagaa top 15 top 10 hadda waxaan kula wadaagayaa top 5 muuqaal kale ama laba kalena waa idin kaaga soo sameyn doonaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo laakiin muuqaalkan waxa aan kugula wadaagi doonaa top 5 niches oo marka ugu wanaagsan nicheskan يعني كليك لو محجيناyo hore waxaan kula soo wadaagay xayeysiinta wadamada marka clickta aad ka hesho halkii click inta lacag ka sameyn karto laakiin kan waxaan kugula wadaagi doonaa niche walba kunkii booqasho ama kun qof ee ku soo booqatay website-kaaga ee maada linkigeeda u dir ama kuura ugu dir ama meel kale uga dir ama caadi ha ku soo booqdaan marba haday website-kaaga yimaadin ee niche-kan ay akhristaan inta lacag marka aad ka sameyn karto kunkii qof in aan kula wadaago ayaan doonayaa waayahay number 1 ama niche-ka koowaad waxa inoogu jira business and finance maybe inaynan ka wada hadlina dhamaantiin yani niche kala aad ka hadashaan qofkii ka hadlo wuu ka hadla qofka ka hadlinne hadii uu doonayo hadda wuu bilaabi karaa business yani business and finance waxa laga sameeyaa ama aad ka sameyn kartaa kunkii visitors ama kunkii booqasho waxaad ka sameyn kartaa $10 iyo 2 senti kama hadlayno 0.16 0.50 0.70 1k visitors ee business and finance niche ah waxaad ka sameynaysaa $10 iyo 2 senti number 2 ama niche-ka labaad ee inoogu xiga waa travel niche website-kaaga waxaa rajeynaa in travel casharo quseeyo aad soo geliso because traveladu dad fara badan baa soo raadiya sawiro qurux badan bay kala degaan way akhristaan hadaba hadii travel niche aad soo gudbiso website-kaagana travel niche-kaas ay soo booqato ku dhawaad 1000 qofood ama ilaa ay 1000 iyo wax ka badan imise ayaad ka sameyn kartaa jawaabtu waxa ay tahay travel niche kunkii visitors waxaad ka sameyn kartaa $10 iyo 2 senti still waxa uu la mid yahay business and finance waayahay number 3 ama midka saddexaad ama niche-ka saddexaad waxa uu yahay weddings niche hadii aad soo gudbisay waa soo gudbisaa hadii aadan soo gudbinne waxaad ka sameyn kartaa halkii kunkii visitors ku dhawaad $10 iyo 2 senti still labadii hore ayuu la mid yahay okay niche-ka afaraad ama marka number 4 waxa noogu jira health and fitness niche-kan waa niche caan ah ku dhawaad yani qof aan soo gudbin oo jiro ma maleenaayo marka hadii aad soo gudbisay waa soo gudbisaa laakiin hadii aadan soo gudbin inaad soo gudbiso ayaan kugu talinayaa su'aasha isweydiinta marka waxay tahay kunkii visitors ama kunkii soo booqdayaal oo health and fitness ah imise ayaad ka sameyn kartaa waxaad ka sameyn kartaa $6 iyo 8 senti $6 iyo 8 senti cafan $6 iyo 8 senti ayaad ka sameyn kartaa
niche-ka ugu dambeeya ee muuqaalkan aynu ku qaadanayno waa home and agriculture. يعني niche-ka waxaa ka sameyn kartaa isna sidoo kaleeto $6.80 waa kunkii soo booqdayaal ama kunkii visitors. halkan waxaan kugula wadaagay top 5 waxaan rajaynayaa in muuqaalo kale aan kaaga soo sameyn doono. haddii aad doonayso waxyaalaha inaad ka faa'iidaysato nala joog oo janaalka subscribe saaro, sidoo kalena gambalaalka furso markaa wax walba aan soo gudbin ay kugu soo dhacaan. ugu dambeyn tan iyo muuqaalka xiga sida ay nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.